kaalin noocee ah ayay ku leeyihiin ciidamada qalabka sida dib u dhiska dalka gaar ahaan barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud waxaa arrimahan warbixin la xiriirta ka sameysay wariyahayaga Filsan Duceysane halkani waa wadada ka timaada tiyaatarka qaranka hawl isxilqaan oo lagu qurxinayo wadooyinka magaalada Muqdisho waxa ka wada qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka iyo iskaashiga dhalinyarada waa hawl ugub ku ah dalkeena waxayna wadaan talaabadan oo ay ku sameynayaan wadooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho iyagoo aaminsan in dib ay u dhisayaan dalkooda qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin ciidamada qalabka sida ay isugu jira booliska military asluub iyo nabad sugidda oo kaashanaya dhalinyarada ayaa wada howlo isxilqaan ah oo lagu qurxinayo wadooyinka caasimadda Muqdisho xilli ay ku guda jiraan hawsha ay isku xilqaameen ayaan ku booqanay agagaarka tiyaatarka qaranka waxa goobta ay ugu waramay Daawud Cabdisalaad oo kamid ah askarta ka shaqeynaya halkan iyo mid kamid ah dadka shacabka oo aad u soo dhaweeyay arrinta isxilqaanka ah ee ciidanka iyo dhalinyaradu istaageen waxaan dhammaan isxilqaamayaasha ciidamada qalabka sida iyo iskaashiga dhalinyarada dalkan waxaan naga go'an annaga inaan dalkan dhisno qurxino difaacno naf iyo noodba ku bixino maanta hadda howlka ku wajahan tiyaatarka eriga ka bilaabay ilaa isbartiibo inaan qurxino hawsheeda bilaawno ilaa isbartiibaan ku geenaynaa biidnillah waxqabadka waana ka sii wadaynaa ilaa dalkan meel kasta waa tegaynaa meel kastana waa ka qabanayna waa quruxda waa samaynayna difaaca dalka diyaara u nahay intaba waxqabad diyaara u nahay hawsha muddo badan aan wadnay ilaa magaalada dhul meelo badan baan waxqabadkeena wax hadda TV hadal aan ku soo koobi karna ma waa wax soo jireen oo ilaa haddana aan taagannahay ilaa nafta ay naga dhacdana aan taagannahay inaan qaban oo dalkan qurxino waxaan ugu dhali howl wadaneed dalkaaga qof aad martay oo tahay ma leh cid in hawsha ku dirta oo ka sugeysna ma leh ina aad isku dirtaa fiican intii howl lagu diri la ina aad isku dirto dalkaaga difaaciis cid ku diraysa ma leh qurxintiis cid ku diraysa ma leh aad isku dir saas inaad taasa naga go'an in anaga isku dirno hawshina waa wadna horta ciidamada horta dhammaan afarta ciidan dhalinyarta kamid waxaan dhilaa difaac waa ku wada jirnaa taas waajibna saaran waa qurxinta dalkana waajib ku saaran waa inay ogaataan fiican in waajib saaran tahay qurxinta dalka iyo dhiska dib u dhiska dalka iidan in waajibka qayb ka mid ah waa dhammaan ugu diyaar garoobna difaac kaliya xoog ayaan saar difaacna waa taaganaa qurxintana waa taaganaa dib u dhiskana waa taaganaa waxaan saaki arkay dad isu xilqaamay in ay dayactiraan dalkoodii iyo deegaankoodii waa sida hadda idin muuqata bilicda ah kalarada la kala reeyay gobolka Banaadir waa hooyadii bulshada maanta waan u mahad celinayaa baada saxaafadda iyo afarta ciidan ee ka qayb galay hawshaas oo lahayd dhalinyarada deegaanka ama degmooyinka ama shacabkaba ayagoo shaqadoodii ahayd ayaa haddana waxaa isu xil saaray ciidamadii qalabka sidii qaar ka mid ah waa sida idin muuqata sanado kadib magaalada Muqdisho tan iyo burburkii waxaa haatan ka soo muuqanaya dib u kabasho dhanka dhismooyinka bilicda wadooyinka nadaafadda iyo sidoo kale horumarka magaalada ay ku talaabsanayso halku dhiga isxilqaamayaasha ciidamada iskaashiga dhalinyaradu waa bulsho nadiif ah iyo balad nabad ah iyo sidoo kale dal waxa dhisay dadkiisa Filsan Duceysane Somali Cable Muqdisho